xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waxay ansixiyeen heshiiska iskaashiga arrimaha waxbarashada ee u dhaxaynaya wadamada Soomaaliya iyo Turkiga waxaana codka uu ahaa ama lagu ogolaaday 150 xildhibaan sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa waxa ay September 14 2020 aqrinta koowaad mariyeen heshiiska waxbarasho ee dhexmaray dalalka Soomaaliya iyo wadanka Turkiga. ujeedada heshiiska ayaa ah iskaashi labada dhinac iyo waliba dejin heshiis iskaashi oo dhanka waxbarashada oo ku salaysan sinaan ka wada faa'iideysi iyo wax isdhaafsi. isweydaarsiga xog cilmi baarisa iyo waliba isweydaarsi khubaro iyo macallimiin wadaagida khibradda farsamada iyo waliba xirfadaha booqasho waxbarasho isweydaarsi sidoo kale technology iskaashi iyo waliba isdhaafsi qalab iyo agab waxbarasho in ardayda loo fududeeyo martiqaad hawlaha dhinaca waxbarashada iyo waliba indheynta tartamada dhaqanka iyo waliba dhaqaalaha ee gudaha wadamadaasi ama labada wadan ee Soomaaliya iyo Turkiga. dhinacyada waxa ay dhiiri gelinayaan in lagu dhigo lagana baro afafka Soomaaliga iyo Turkiga hay'adaha tacliinta ee sare ee labada dal labadaba ay arintaas iyada dhaqan galiyaan. labada wasaaradood ayaa ku heshiiyay in ay hubiyaan taariikhda juqraafiga dhaqanka iyo waliba hidaha dalalka kale la soo bandhigo si sax ah labada wadan ay soo kaashadaan in labada dhinac sanad walba ay si isku mid ah u bixiyaan deeqo waxbarasho oo la xiriira luqadaha tacliinta sare iyo waliba cilmi baarista xulashada aqbalaada iyo waliba sidoo kaleeto ardayda tacliinta u baahan ee tacliinta sare iyo waliba cilmi baarisada kala duwan waxa lagu fulinayaa sharciyada qaran ee dalalka deeqaha bixiya. heshiiskan ayaa dhigaya dhaqangelinta heshiiska waxa loo xilsaaray wasaaradaha waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya iyo Turkiga. heshiiskan gudaha Soomaaliya lagu ansixiyay ama lagu meelmariyay waxa la dhameystirayaa laguna saxiixay magaalada Muqdisho waxaana horay markii horeetay heshiiskan bilowgiisii 2016 waxaana dhanka Soomaaliya u saxiixay Cabdisalaan Cumar oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda halka Turkigana uu xilligaasi u saxiixay Mavlud Cavusoglu oo ahaa isna wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga. hadliye iyo wasiirka wadanka Turkiga ayaa waqtigaasi waxa ay sheegeen in ay tahay qorshe labada dalba oo ugu jirto arin wanaagsan iyo waliba guul iyo faa'iido balse dadka Soomaalida qaarkood ayaa u arka in dawladda Turkigu ay kaliya faa'iidada ugu badan dadka helaya ay yihiin kuwa Soomaalida inkastoo dawladda Turkiga lafteedu marka la fiiriyo xilligan lagu jiro ay faa'iidooyin kale ka heli karto laakiin xilligan oo Soomaaliya muddo burbur ay ka soo kabanayso ayaa loo arkaa in faa'iidada ugu badan ay dawladda Soomaaliya leedahay inkastoo dawladda Turkigu ay muddooyinka u dambeeyayba ahayd kaalinta ama gacanta midig ee caawinta ardayda Soomaaliyeed iyo dad badan oo Soomaaliyeed noqotayna wadanka labaad ba u noqotay la dhihi karo dadka Soomaaliyeed muddooyinka u dambeeyay wadanka Turkiga. cabdi dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha waxbarashada waliba qaarro way soo dhaweeyeen qaarro waxay leeyihiin 30 sano ee Soomaaliya burbursaneed ama ku dhawaad 30 sano ee Soomaaliya burbursaneed Carab ayaa haysatay systemkii waxbarashada ee wadanka Carab ayaa kharibtay wadamo Carabeed ayaa kharibay manahij wadamo kale laga soo min guuriye iyo gudaha Soomaaliya la keenay manhajka waxbarashada Soomaaliya meesha kaga baxay waa kan hadda la aasaasayo umaamadka ku jira waxyaabo badan oo kamid yihiin ururada xaq jirka la aaminsan yahay inay ka yimaadeen dadkii wadamadaas wax ku soo bartay marka la fiiriyo aasaasyaashii asalka ururada Soomaaliya jihadoonka oo Pakistan rag wax ku soo bartay ay kamid ahaayeen oo ninkii al-shabaab gudoomiyaha waan jiray godana uu kamid ahaa. halka marka aan fiirino wajiga labaad ay maanta u leexatay waxbarashada Soomaaliya oo wadanka Turkiga ah oo dhinacna Aasiya dhinac ka saaran Yurub sidee bay noqon doontaa? horta
at any given time waxaad ogaataa Turkiga dantiisu wataa maaragtay way okay almost 80% waxaad dhihi kartaa maaragtay in maaragtay barashada iyo hadda sida muuqata hamay dawlad muslim weeyaan dad muslimiin ay caawinaysa 80% waa dhihi kartaa laakiin 20% waxaad ogaataa ayaguna dantooda wataan maaragtay dantooda ha noqoto yacni wiilka Soomaaliyeed maanta wax baranayo berito hala weynaato turkinimada hala weynaato hagar waaqsado maaragtay I wouldn't halkan herkan maanan gaari lahayn hadaysan maaragtay dawladda Turkiga ahayn soo agartay ma basically hadii aad fiirisid eeda anaka iskale ama eeda Soomaali waa iskale waayo meesha maanta la isdhigay Soomaali baa isdhigtay in maaragtay ay timaado manhaj uu Arab ka dambeeyo oo maaragtay ay ka dhasheen fikradahan xaq jirta and all this laakiin at the end of the day waxa weeyaan hala fiiriyo khayrka meel uu ku jiro ma aha kaliya dhinaca madow inuu qofka fiiriyo waxa weeyaan ma aha dhinaca bright ka fiiri kaba soo qaad like maalin dhaweed yarkii buuhoodle laga qaaday oo Turkiga la geeyay oo shalay wasiirka arrimaha dibadda wadanka Turkiga uu soo exactly qofka noocaas bari ka maalin intaas oo qof ayuu maaragtay saameyn ku yeelan doono marka waxa weeyaan it's okay laba dhinacba waa yahay halkaas waxaan ka rajaynaynaa inuu heshiis ummadda Soomaaliyeed iyo ubadka Soomaaliyeed ee waxbarashada u taamahaya ay ka faa'iidaan inuu noqdo ayaan rajaynaynaa wadada wanaagsan loo maro